madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa dhagax dhigay isla markaana xadhiga ka jaray mashaariico mug iyo miisaan leh oo dawladda hoose ee degmada Burco ka hirgelisay gudaha magaalada. mashaariicahan uu madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xadhiga ka jaray ayaa waxa kamid ahaa dhismaha xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ay ku shaqay doonto oo loo dhisay hab iyo hanaan casri ah. sidoo kalena wafdiga madaxweyne ku-xigeenku waxa uu dhagax dhigay wadooyin laamiya oo dawladda hoose ka dhisi doonto gudaha magaalada Burco. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga la socda ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay waxqabad iyo horumar dawladda hoose ee degmada Burco ka wada magaalada, kuwaasi oo ay kamid yihiin laba garoon oo waaweyn oo kubadda cagta ah iyo deyr iyo dhismay loo dhisayo ciidanka dabdamiska ee gobolka Togdheer. guud ahaan mashaariicahan qaar dhamaadeen qaarna socdaan ayaa waxa iska kaashanaya mashruuca maamul daadejinta ee loo soo gaabiyo GPLG-ga iyo dawladda hoose ee degmada Burco. xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo ka hadlayay dhagaxdhiga wadooyinka ayaa waxa uu yiri wadadani maanta waxay ka mid tahay wadooyinka aad maanta loo dhagax dhigayso. wadadani waxa weeye xaafadda la yiraahdo waxay ku taala xaafadda waxa la yiraahdo Buqleeya oo riigii weynaa caanka ah Burco xaggan inaga xiga. cabirkeedu waxa weeye 650 mitir wadadan mudane madaxweyne ku xigeen. waxa insha Allah taala ay noogu xigiso wadada kale ee qasabka iyaduna 700 mitir wadooyinka 750 mitir wadooyinka marka la isku daro haddaan nahay dawladda hoose iyo mashaariicda GPLG marka la isku daro wadooyinka waxay noqonayaan 3 kiiloomitir iyo badh. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco ahna duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa wafdiga madaxweynaha faahfaahin ka siiyay dhismaha xarunta dawladda hoose oo uu sheegay inaan iyaga ka hor jirin dhisme bila hanaanka bilicda degmada iyo xafiisyadu ay ku shaqayn jireen dawladda hoose. halkani maanta waxaanu nasiib u yeelanay in madaxweyne ku-xigeenku xadhiga ka jaro xaruntii dawladda hoose laga maamulayay ee cusbayd waa fooqa quruxda badan leh. lacag badan baa ku baxday. lacagtaasi 3 meelood bay madaxweyne ku-xigeen ka timi dawladda hoose degmada Burco iyo dawladda dhexe iyo hay'adaha GPLG-ga ee nagala shaqeeya dhinaca development iyo horumarinta. in badan buu soconayay. waa guri aad iyo aad u qurux badan oo isleenahay ha idinka hadheen maamulka naga dambeeya haddii Ilaahay ka dhigo. waxyaabo badan oo noo qabsoomay way jiraan oo degmada Burco nooga qabsoomay oo aan hay'adina naga caawinin cid kale naga caawinin oo ay ka mid yihiin garoomadii kubadda cagta ee saaka kormeerka aad ku soo martay. madaxweyne ku-xigeen kaldhexaadina ma qabno irmaan waraabsiguna waa nagu yar yahay haddana wax badan baanu qabsannay. gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa geestiisa ku bogaadiyay dawladda hoose ee degmada Burco horumarka ay ka wado magaalada. gobolka Togdheer ahaan sharaf weyn bay noo tahay in madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu noogu yimaado maanta kormeer uu ku sameynayo mashaariicda GPLG ee ka socota gobolka Togdheer gaar ahaan dawladda hoose degmada Burco. mudane madaxweyne waxaad indhaha ku soo aragtay mashaariicda GPLG ee la qabtay. waxaad sidoo kale halkan sharaxaad laga bixiyay muuqaal fiideo iyo maqalba leh mashaariicda socota iyo kuwa mustaqbalka la filayo in laga fuliyo degmada Burco. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa mashruuca GPLG-ga Soomaaliland ayaa magaalada Burco iyo dawladda hoose ku amaanay nidaamka ay uga faa'iideysteen mashruucan. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maamulka dawladda hoose ee Burco ku hambalyeeyay inay guulo muuqda ka gaadheen hirgelinta maamul daadejinta mashruucan, isagoo sidoo kalena kula dardaarmay inay muhiimadda siiyaan dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka aasaasiga ah. dhaqaalaha ku kordhay jaamacadda inuu ku kordhay primary schoolka iyo primary
tacliinta asaasiga iyo caafimaadka asaasiga in lacagtaas ku korodho bay ahayd oo ay macalinka liita dad kunta macalin siinayeen 100 macalin gaarsiisaan oo magalada ilaa ma ku kula jooga macaasimada qudhoodu iqaaradu iska dhitaayo waxay qaataan way kooban tahay marka halka idinka dib isku noqontii xagga wadooyinka aad iyo aad badan waysantiin intii ay JBLG qabanayeen idinkuna saddex laabkeeda yaad ku daraysaan wadooyinkuna waxyaabaha horumarka waxa muhiimsan ka qaata aad iyo aad tahay ku hambaleenaya marka aan wax leeyahay kor qaadista adeegyada asaasiga bulshada in culayska saartaan wixii hadda ka dambeeya sanadooda qorshe wax samaysateen wixii saddex suuragal ah inay soo kordho inaad u baadisaan adeegyada asaasiga badisaan waan ujeedada inuu socono in laga dhiso salkii laga soo dhiso caafimaadkii iyo waxbarashadii kolkuu salka ku hagaago iyo tasarruf la gaaraya haddaynu salkii aan ka dhutiyayno ama aan ka liidano waxbarashadana sare qiimo yeelanayso caafimaadkeena dhakhtarka weyne qiimo yeelanayso haddaan inaan MCJ-diisa waxaan hoosta ku hayno cabsaaq faarax cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland burco